ciidamada midowga Afrika ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka helay muddo kordhin ku xiran soo gabagabeynta doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxtooyada Soomaaliya oo lagu wado in dalka ay ka dhacaan kadib soo jeedin ka timid golaha ammaanka iyo nabadgelyada midowga Afrika. Sharci ahaan waqti kordhintan AMISOM ayaa waxay bilaabanaysaa 31 Diseembar 2021 oo ah maalintii ugu dambeysay ee sanadka, waxayna muddada cusub ku xiran tahay sida loo dardargeliyo doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxtooyada Soomaaliya. saraakiil ka tirsan AMISOM ayaa sheegay in mas'uuliyadda ugu weyn ee dhankooda soo maraysa ay tahay sugidda amniga iyo ilaalinta doorashooyinka oo xaalado iyo duruufo kala duwan soo maray sidii ay isugu fahmi lahaayeen madaxda Soomaalida. Qorshaha ayaa ah in howlgalka AMISOM uu kordhiyo booliiskooda si ay ula shaqeeyaan kuwa federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka oo lagu soo dooranayo xildhibaanada golaha shacabka iyo senatarada aqalka sare. Mustaqbal ayaa Arbacadii 12 May 2021 ogaatay in waqti kordhinta AMISOM loo gudbiyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kadib codsi ka yimid golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika oo talaadadii ku kulmay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. Ciidamada AMISOM ayaa mas'uul ka ah ilaha dhaqaale ee dalka sida dekedaha iyo garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, waxaana intaasi u dheer inay la socdaan dhaqdhaqaaqa madaxtooyada qaranka. qabsoomida iyo in waqti loo qabto doorashooyinka Soomaaliya ayaa ku xiran wada hadalka madaxda federaalka kuwa xubnaha ka dowladda dhexe iyo gobolka Banaadir ee 20 bishan ay ku ballansan yihiin si ay ugu wada hadlaan doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxtooyada, waxaana wada hadalkooda sal u ah heshiiskii 17 September 2020 ka dhacay magaalada Muqdisho. Haddaba ciidamada AMISOM ma ka soo bixi karaan mas'uuliyadda amniga Soomaaliya gaar ahaan waqtiga doorashooyinka? Samson Maxmed, Mustaqbal, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier